waxay ahayd gabar hamigeeda ugu horeeya uu yahay raaligelinta Rabbigeed si muuqato iyo si qarsoonba. xilligii Cumar bin Khattab radiyallahu anhu ayaa waxaa jiray koox ganacsato ah kuwaas oo caanaha ku dari jiray biyo si ay u bataan caanaha oo ay noogu helaan lacag badan. dadkii shacabka ahaa ayaa u dacwooday Cumar bin Khattab radiyallahu anhu. Cumarna markii uu maqlay dacwadaas ayuu wuxuu diray dhawaaqe si uu dadku u ogeysiiyo una dhaho caanaha laguma dari karo biyo. ciddii caanaha biyo ku dartana waxay ciqaab kala kulmi doontaa amiirul mu'miniin. habeenada ka mid ayay soo baxeen Cumar bin Khattab iyo qaadimkiisii oo lagu magacaabi jiray Aslama, waxayna u soo baxeen inay soo ogaadaan xaaladaha shacabka. kadib socodkii ayay ku daaleen. Cumar waxa uu ku fadhiistay dhagax si uu ugu nasto. kadibna waxa uu maqlay haweeney gabadheeda ku dhahayso istaag oo caanaha ku dar biyo. gabadhii ayaa ugu jawaabtay hooyadeed, hooyo miyaadan maqlin ogeysiiskii uu bixiyay Cumar? hooyadii ayaa tiri, oo muxuu ahaa ogeysiiskaas? gabadhii ayaa ku tiri hooyadeed, wuxuu amray inaan caanaha lagu dari karin biyo. hooyadii ayaa tiri, istaag oo caanaha ku dar biyo. adigu ma joogtid meeluu Cumar joogo ama dhawaaqaha Cumar joogee. gabadhii ayaa ku jawaabtay, hooyo wallaahi inaanan ku adeecaynin bannaanka oo aanan ku caasinaynin markaan keligay noqdo. haddii uusan arkaynin Cumarna waxaana arkayo Rabbiga Cumar. Cumar marka uu maqlay hadalkaas ayuu qaadimkiisii ku yidhi, inoo calaamaday gurigan. marka uu waaga baryana ii soo ogow gabadha arrimaheeda iyo inay leedahay wax nin ah. kadib Cumar waxaa loo sheegay gabadhu inaysan lahayn wax nin ah. Cumar marka uu maqlay hadalkaas ayuu u wacay saddexdiisii wiil ee kala ahaa Cabdullaahi iyo Cabdiraxmaan iyo Caasim. waxa uuna ku yidhi, ma idinku jiraa qof u baahan guur? Cabdullaahi iyo Cabdiraxmaanna waxay dhaheen, waxaan leenahay xaasas. Caasimna wuxuu dhahay, aabe anigaan lahayn xaas ee ii guuri. kadibna waxaa loo wacay gabadhii waxaana loo guuriyey Caasim. Caasimna waxa uu ahaa nin baari ah oo wanaagsan. waxa uuna ka mid ahaa ragga kuwooda ugu akhlaaqda wanaagsan. wuxuu kaloo ahaa gabyaa fasaaxad badan. wuxuuna dhashay xilligii Nabiga sallallahu calayhi wasallam. axaadiistana waxa uu ka wariyaa aabihiis Cumar bin Khattab radiyallahu anhu. Caasim gabadhii loo guuriyeyna waxay u dhashay 2 gabdhood oo lagu magacaabi jiray Xafsa iyo Layla. Laylana waxaa guursaday Cabdulcasiis ibn Marwaan, wiilka uu dhalay khaliifkii Umayyiyiinta, kaas oo walaalna la ahaa Cabdulmalik ibn Marwaan. waxayna u dhashay Cumar bin Cabdicasiis, kaas oo lagu magacaabi jiray khaliifkii shanaad ee Islaamka.